السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعانا wanaagsan dhamaan saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran channelka Samna Kasta Official. Fadlan haddii aad tahay markii hore soo booqato channelka subscribe noo saar, gambalelkana furo si mar kasta ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan kana soo dhigno. Fadlan haddii aad hore noo joogtana muuqaalka like noo saar sidoo kalena sii share gare si uu muuqaalku ku gaaro saaxiib badan oo ku maasan tahay. Barnaamijkan maanta wax ku soo qaadanayna aflaamta xiisaha badan ee sanadkan u soo bixi doona fanka loo yaqaan fanka Sandalwood oo marka xaruntoota dhankaas Chennai ama fanka loo yaqaan Tamil Nadu ayaa maanta qodobada xiisaha badan marka soo qaadanayna iyo sidoo kale xidiga la wajacay Abdulkuur Salmaan oo marka fanka Malayalam ka tirsan filimkiisa cusubna soo qaadan doona filimkaas aad loo sugay door khamajina filimkaas ku matali doona. Haddii aan ku bilowno saaxiibada qiimaha badan filimka lagu magacaabo King Khoga oo marka hogaamiye ka xidiga marka lagu magacaabo Abdulkuur Salmaan oo marka laga leeyahay filimkan waxa laga leeyahay dhankaas Malayalam ama fankooda marka loo yaqaan Mollywood ayaa filimkaas iskale waana filim xiiso badan oo xidiga lagu magacaabo Abdulkuur Salmaan filimka ku soo sidoo kale xidigta caanka ah Shuriya Lakshmi filimkana qayb ay ka tahay oo marka doorka tirshada filimka ku matali doonta halka filimka luqadaha kala Malayalam sidoo kale Telugu filimka lagu daawan doono maadaama actorkan shacbiyad badan marka ku leeyahay fanka marka loo yaqaan Telugu filimkiisa ugu dambeeyay dhankaas marka laga daawo Telugu uu ka noqday blockbuster weyn haddana filimkan xiiso badan marka lagu magacaabo King Khoga oo xidigan ku matali ninka geestra awood badan filimkan xiiso badan waxa shaqo laga qaaday marka filimka la daawan doono sanadkan cusub markaas 2023 balse filimkan maalmaha ugu dambeeyay waxa laga soo bandhigay kartoon u khaas xidigan marka lagu magacaabo Abdulkuur Salmaan si filimka hadalayntiisa marka irka u gasho kartoon kala duwan aad ay loo amaano sidoo kale daawadayaasha kala duwan filimka xidigan aad ku jecelna filimkan aad ay u soo dhaweeyeen xidigan hadda wuxuu soo jeestay markuu inuu sameeyo doorka khamajeenimada maadaama filimadiisa ugu dambeeyay ka yimid Group iyo sidoo kale Job iyo sidoo hadda filimka lagu magacaabo King Khoga waxa ay filim marka gangster sidoo kale awood badan filimka ku matalay oo marka filimadii hore Job iyo sidoo kale Group marka ka danaan doonaan actorkan hadda wuxuu ku soo biiray actoraash marka sameeyo door walba hada noqdo dhanka action iyo sidoo kale doorka marka romantic hadana dhawaanaha waxa la shaqo laga qaadan doona xilliga rasmi ah filimka la daawan doono sidoo kale directorka caanka ah Black George ayaa filimkan laga sameeyay halka shirkadda lagu magacaabo C Studios marka madax u yahay xidig ninka lagu magacaabo Bonnie Kapoorna filimkan wax ka maalgelin doona sidoo kale filimkan xiiso badan waxa rating directorka qolay ninka lagu magacaabo Abhishek iyo sidoo kale Nayar Chandra ayaa filimka history filimka sheekada qoray waxaana shaqo laga qaaday bilaha ugu dambeeyay sanadkan cusub markaas 2023 in filimka teatrada saar doono wixii ka soo korana filimkan waxaan ku soo gubin doonaa muuqaaladan xiga. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan dhamaan saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran channelka Samna Kasta Official. Fadlan haddii aad tahay markii hore soo booqato channelka subscribe noo saar, gambalelkana furo si mar kasta ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan kana soo dhigno. Fadlan haddii aad hore noo joogtana muuqaalka like noo saar sidoo kalena sii share gare si uu muuqaalku ku gaaro saaxiib badan oo ku maasan tahay. Barnaamijkan maanta wax ku soo qaadanayna aflaamta xiisaha badan ee sanadkan u soo bixi doona fanka loo yaqaan fanka Sandalwood oo marka xaruntoota dhankaas Chennai ama fanka loo yaqaan Tamil Nadu ayaa maanta qodobada xiisaha badan marka soo qaadanayna iyo sidoo kale xidiga la wajacay Abdulkuur Salmaan oo marka fanka Malayalam ka tirsan filimkiisa cusubna soo qaadan doona filimkaas aad loo sugay door khamajina filimkaas ku matali doona. Haddii aan ku bilowno filimada marka Tamil Nadu sanadkan cusub la sugi doono waxa ugu horeeya filimka lagu magacaabo Fathi oo marka hogaamiye ka yahay superstar caanka Dhanush oo marka waqti fiican ku jira maadaama filimadiisa ugu dambeeyay 2023 daawada ay kala haafay Thirujata Balam oo marka la daawado bishii August ka soo noqday blockbuster weyn waxa uu yahay filimkiisa Nano Farifeen ka soo noqday film Hida oo marka profit filimkaas la yeelay haddana filimkan xiisaha badan marka lagu magacaabo Fathi ayaa xidigan u diyaarsan sidoo kale teamka filimkan iskala qorsho wuxuu ahaa in marka filimka teatrada saaro 3 December ay qorshuha filimkan marka teatrada saaro balse teamka filimkan iskala dib ay u dhigteen oo marka waxay ka dhigteen 17 February marka teatrada la saaro sidoo kale filimkan muusika dhanka muusikada waxa qoraya muusikista caanka sidoo kale jilaaga caanka ninka lagu magacaabo Chief Barkashan Kumar oo inta badan saameyn ku leh marka la joogo fanka Telugu sidoo kale Tamil Nadu sidoo kale directorka caanka Fikay Atu ayaa filimkan agaasimay halka filimka luqadaha Tamil iyo Telugu lagu daawan doono taasoo ka dhigta filimka in marka dib loo dhigo si marka luqada af Telugu ama firshinka marka Telugu filimkan loo codeeyo xidigana marka sanadka 2023 uu ku bilowdo fanka ee sanadka 2023 filimkiisa cusub marka Fathi oo marka aad loo amaanay sidoo kale heesa kala duwan filimkan laga soo bandhigay sidoo kale xidigta caanka ah Samyukta Menon doorka tirshada ay qaadan doonta halka marka la fiiriyo dhanka cajaladaha qaybinta oo marka teatrada loo qaybinayo 3 shirkadood ay iska kaashan doona
oo markaa kala 7 Screen Studio sidoo kale Regent iyo sidoo kale shirkadda caanka Pan India Limited ay iska kaashan doona marka la fiiriyo dhanka ajal qaybinta taasoo ka dhigan tahay filimkan 3 shirkadood markaas profit u soo xaran doona marka la fiiriyo marka tiyaatarada la saaro bisha 17 February waxa ka dhiman waa 2 toddobaad kadib ay filimka tiyaatarada la saari doona sidoo kale saaxiibada qiimaha badan waxa soo qaadan karnaa filimka lagu magacaabo Border oo markaa hogaamiye xidiga Alnabuuminka lagu magacaabo Arun Vijay oo filimkan xiisaha badan lawaanaha markaa uu qabsaday dhankaasi marka la joogo fanka Tamil Nadu gooskiis laga soo bandhigay ama teaserka laga soo bandhigay filimkan aad looga helay filimkan wuxuu baaqad dhowr jeer kala duwan maadaama filimkan sanadii 2021 shaqeysa la bilaabay ilaa haddana filimkan la daawan oo markaa sanadkan 2023 weli la joogo filimka qorshe wuxuu ahaa markaa filimka sanadkan 2022 ay tagay in filimka la daawado balse ma aysan dhicin haddana waxa la qorsheynayaa filimka 2023 inuu xidigan tiyaatar loo saari doono inkastoo filimka tiimka iskala filimka shaaca ka qaaday inuu filimkan noqon doono Pan India movie oo markaa luqadaha kala duwan ee sidoo kale fanka Hindi iyo sidoo kale Telugu iyo Malayalam sidoo kale Tamil Nadu in markaa filimka lagu kala daawan doono taasoo ka dhigta filimka inuu noqon doono Pan India movie oo markaa la imaan doono Arun Vijay iyo sidoo kale xidigta wax ku jira Regina Cassandra ayaa filimka door adag qaadan doonta sidoo kale filimka waxa shaaca laga qaaday in markaa filimkan uu yahay spy thriller ama jaajuus oo markaa khiyaano filimkan isku jidho sidoo kale filimkan xidigta lagu magacaabo Steffi Patel ay filimka qaadan doonto doorka markaa lamaanta maxaaska wax ku matalay Arun Vijay oo filimka ku matalay nin askari oo markaa lagu magacaabo Alvinda Jandarka Shekhar filimkan xiisaha badan waxa shaaca laga qaaday markaa la daawan doono 24 February ayaa filimka tiyaatarada la saari doona sidoo kale saaxiibada qiimaha badan waxa soo qaadan karnaa filimka lagu magacaabo Bathu Thala oo markaa hogaamiye ka Slim Barsan TR filimkan waa filim Tamil Nadu oo markaa laga helay dhankaas Tamil Nadu xarunta tahay Chennai waxaana hogaamiye ka STR ama Slim Barsan TR filimkan waxa soo bixi doona 3 March filimkan tiyaatar la saari doona lagu daawan doona luqadaha Tamil iyo sidoo kale Telugu waana filim markaa isku jira action iyo thriller khiyaano halka filimkan waa gaasima directorka lagu magacaabo Krishna halka muusikada uu qaraacay muusigiista caanka fanka markaa laga dambeeyay Hindi idil ama daafaha caalamka filimkan laga yaqaan directorka lagu magacaabo Ar Rahman ayaa filimkan dhanka muusikada uu qaraacay saas ka dhiganta filimkan muusika holacay markaa filimkan laga diyaarin doono iyo sidoo kale Slim Barsan TR markaa waqti fiican ku jira filimada ugu dambeeyay ka kacayeen filmo blockbuster sidoo kale shirkadda caanka Studio Gurina iyo sidoo kale Pan India Limited filimkan waxay ka maalgelinayaan sidoo kale filimka dhanka sheekada waxa qoray ninka lagu magacaabo Narthan oo inta badan laga dambeeyo sheekooyinka holaca inkastoo filimkii markaa hore ee mufti fanka markaa laga lahaa Canada oo filimka laga soo mangoriyay balse filimka sheekadiisa wax badan ayaa laga bedeli doonaa sida filimkii Fira Sim Haradi oo markaa sheekadii hore markaa wax badan laga bedelay hadna isla sheekada wax badan ayaa filimka laga daawo doona xarun magacaabo Bathu Thala waxaana hogaamiye lagu dhigay Slim Barsan TR sidoo kale xidiga markaa lagu magacaabo Gautam Kartik ayaa filimkan door adag qaadan doona waxaa loo baahnaa doorka askariga markaa qaatay Sirmolali inuu filimkan qaadan doono filimkan waxa shaaca laga qaaday 3 March ama bisha 3 filimkan la daawan doono tiyaatarada dhankaasi Tamil Nadu filimka la saari doono sidoo kale saaxiibada qiimaha badan waxaan diirada saari doona filimka lagu magacaabo Jailer oo markaa hogaamiye ka superstarka caanka Rajinikanth oo markaa ugu weyn marka la joogo fanka Tamil Nadu ama fanka Kollywood haddana waxa shaaca laga qaaday filimkiisa xiisaha badan markaa lagu magacaabo Jailer filimkan waxa la daawan doonaa 14 Abriil ayaa filimkan masrax la saari doona halka filimkan laga sameeyay ninka lagu magacaabo Nelson Dilo Kumar filimkiisa ugu dambeeyana waxa filimkii markaa Beast oo markaa hogaamiye ka Tharapathy Vijay waxaana ka soo wareegay filimkii Doctor oo markaa hogaamiye ka Dr. Shiva Raj Kumar analaha Dr. Shiva Kumar oo filimada waxay soo badan balse filimkiisa ugu dambeeyay Beast wuxuu ka noqday filim burburay inkastoo lacag fara badan oo soo xareeyay filimkaas sheekadiisana markaa aad u liidatay balse filimka Jailer wuxuu dhahay wax ka saameyn badan doona filimkiisa ugu dambeeyay Beast sidoo kale filimkan muusikista caanka Nurur oo markaa laga dambeeyay marka la joogo fanka Tamil Nadu ayaa filimka dhanka muusikada u qaraacaya sidoo kale filimkan waxa xiisaha badan xidigta caanka Tamanna Bhatia filimkan qaadan door adag sidoo kale waxa ku jira xidiga markaa lagu magacaabo Dr. Shiva Raj Kumar filimkan kaalada ay ku qaadan doona filimkan xiisaha badan waxa daawan doona 14 Abriil sidoo kale waxa soo qaadan karnaa filimka lagu magacaabo Ponniyin Selvan ay markaa ka mid hogaamiyaal fara badan filimka la isku keenay qaybtiisa labaad filimkan waxa shaaca laga qaaday 18 Abriil in filimkan xiisaha badan masrax la saari doono filimkan qaybtiisa ugu weyn wacdaraha dhigta la soo baxay 3 September haddana qaybta labaad lagu dhawaaqay shaaca laga qaaday markaa daawan doono 28 Abriil iyadoo markaa isku mar la duubay labada qaybood oo markii 4 sano la duubay markaa labada qayb 2018 ayaa markaa la bilaabay labada qayb markaa duubis lagu bilaabay haddana waxaa la soo dhameystiray qaybta labaad markaa intii ka harsanay
waxaana shaaca laga qaaday hogaamiyaasha hore filimka ku jiray Jian Fekno sidoo kale Jayam Rafi iyo sidoo kale kartid inay doorarka qaadan doonaan sidoo kale gabdhaha kala tirisha iyo sidoo kale xigta caanka Aishwarya Rai Bachchan filimkan kaalinta adagna qaadan doonto oo markaa doorka laadama filimkan ay ku matalayso sidoo kale sheekada markaa hore u socotana qaybta la soo aftiri doonaa sidoo kale filimka qaybta hore ganacsi wali sameeyay maadaama ku dhawaatay 500 karoor qaybtan waxa la filayaa filimkan ka tilaabi doono 1 karoor waxay si fara badan filimkan u sameyn doona teamka filimka leh mari raadna xadiga markaa agaasiman waa ninka lagu magacaabo Letterman hore waa agaasiman jiray filimanta markaa la yiraahdo dhankaasi Bollywoodka hadan wuxuu soo janjeeray marka la jeefanka markaa ana baahday Hollywoodka hadana filimkan classic ayuu sameeyay markaa lagu magacaabo Bunyan Silfan Part 2 ana shaaca laga qaaday marka la daawan doono 28 Abriil sidoo kale xisaab asxaabta qiimaha badan wax soo qaadan kana filimada xisaab badan kamid Thalapathy 67 oo shaaca laga qaaday xilliga rasmiga filimka la daawan doono waxaana ku xarakeyn doona Thalapathy Vijay maalmo muuqaalka ugu dambeeyay kaga hadlana Thalapathy Vijay marka lagu dhawaaqay filimkiisa cusub balse hadda filimkan magac cusub loo bixiyay waxaa loo bixiyay Leo Bloody Sweet taas oo ka dhigtay filim holac oo markaa jidka ku soo jiro sidoo kale teaser yar filimkan laga soo bandhigay oo markaa uu khaasay Thalapathy Vijay halka Lokesh Konrad filimkan uu agaasimay oo laga dambeeyay taxanaha markaa sidoo kale Vikram Kaithi filim badan uu sameeyay bas hada filimka la xisaabaad markaa sameeyay Thalapathy Vijay si weyn ay u sugaan taageerayaasha sidoo kale dunida daafaca caalamka filimka si weyn ayaa loogu sugi doonaa iyo taxanaha markaa loo yaqaan Gangster Universe oo markaa agaasimay ninka lagu magacaabo Lokesh Konrad jilaal fara badan ay ka mid yihiin sidoo kale Kamal Hassan iyo sidoo kale Karthi iyo Surya filimkan way ka soo muuqan doonaan wasi warbaahinta marka dhankaas Hindiya taabaceen sidoo kale ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badan muuqaalkan waxa ku soo gabagabeynaa filimka lagu magacaabo Kabsa oo markaa hogaamiyalkii xadiga marka lagu magacaabo Kija Sudeep iyo sidoo kale Upendra filimkan waa filim aad u xiiso badan oo markaa la isku kala jirayaal kala duwan ee markaa ka mid yihiin xadiga marka lagu magacaabo Kija Sudeep iyo sidoo kale xadiga marka lagu magacaabo Upendra filimkan waa filim xiiso badan marka luqadaha kala duwan marka lagu daawanayo kala duwan marka shanta luqado waaweyn fanka Hindiya bas filimkan waxa ku soo qaadan xadigta lagu magacaabo Nayantara ayaa filimkan hogaamiyay sidoo kale xadigta lagu magacaabo Shriya Saran sidoo kale xataa Barkash Raj iyo Manoj Babai filimkan waxa la isku keenay jilayaal kala duwan oo marka fanka Hindiya ugu saameynta badan oo marka ugu hore Barkash Raj oo Soomaaliya u taqaan sarabtana filimka kanada ka qaadan doona asxaabta muuqaalkeena maanta ee kaga hadlayna filimada kala Tamiladu marka uu soo bixi doono sanadka 2023 inta kaarsan maanta muuqaalkeena intaas kaga hadlaynay wixii ka soo kordhan waxaan ku soo gudbin doonaa muuqaaladan xiga fadlan saacada qiimaha badan aad muuqaalka heshaan waxaan loo saartaan like sidoo kale muuqaalka sii share gareey si uu markaa u gaaro saaxiib badan wana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh